dhalinyaro badan oo Soomaali ah uma sahlin inay wax badan akhriyaan sababtoo ah tiknoolajiyada keenaysa. Sidaa daraadeed waxaan rabaa in tiknoolajiyada la adeegsanayo qaab dowladkeena oo Jamhuuriyadda Soomaaliya u taalo ayaa rabaa iyo meelaha in lagu haysto cadawgu uu haysto aynu iyo meelaha la isku haysto cadawgu nagu haystaba inaynu kor ka aragno. Gaar ahaan badaynu u badan doonaa sababtoo ah waa aniga waxaan si fiican u aqaan. Halkani waa aaga ay doonayso Ethiopia. Ethiopia waa wadan cadow ah oo dhul Soomaaliyeed inaga haysato oo la yiraahdo dhulka Ugaadiniya. Halkan waa Seylac, Saacadudiin baad u joogtaan, Ceebaad baad u jeedaan, waa jasiirada ugu quruxda badan Soomaaliya ayay ka mid yihiin sababtoo ah waxa ku yaala mangrove waana jasiirad u dhow deegaanka. Halkaasi waa loo yacado qofka Seylac jooga wuxuu kantarooli karaa dekedda Berbera. Waa sababta dekedda waxaan leeyahay Djibouti waa sababta Djibouti aysan sheekadan marnaba ugu socon. Djibouti haddii halka joogto gacanka waxaa la dhahaa waa gacanka Berbera. Soomaali badan waxay tidhaahdaa gacanka cadmeed sababtuna waa qalad inaynu gacanka cadmeed adeegsano. Sidaa daraadeed gacanka Berbera waa gacan muhiim u ah Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed. Djibouti sidoo kale haddii Babul Mandab ay soo galaan xabashidu ganacsigu ma soconayo si nabada kuma marayo. Waa sababta aagaas ay muhiimka u saarayaan. Dekedan waa deked Berbera waa deked caalami ah oo ka tirsan gacanka Berbera. Waxaa taagan maraakiib badan. Markibkan hadda waa cargo wuxuuna ka yimi Cameroon. Berbera ku socday destinationkiisu alaab dejinayay ilaa iyo waxaan ku arkayay shalayto. Sidoo kale waxaa jira wax kasta oo cagaar hadda ujeedaan cagaar ah oo maraakiibta cargo-ga waxyaalaha sokorta iyo waxa qaada. Hadda tugta waa barkab la yiraahdo waa maraakiibta markay soo degayaan doomuhu soo jiheeya ama maraakiibta waaweyn jiheeya. Waxaa laga yaabaa wadanka Togo wuxuu jiheeya maraakiibta markay baxayaan maraakiibta soo xiraa sababtoo ah waa mashiin aad xoog weyn ba ku yaala. Wuxuuna joogaa hadda Berbera. Sidaa daraadeed wax kasta oo guduud ahna waa waxa qaada oilka iyo waxyaalaha deegaanka aan u fiicnayn. Halkan waxaa ku yaala xiis iyo maydh. Xiis iyo maydh saaxiibkay oo reer xiisa wuxuu igu yiri deked yar oo waxa ku taala xoolaha laga dhoofin karo oo buurta xiis laftirkeeda ah xiis port waters. Maydhna dhinaca ka xigta waa meel aad u kuleyl ah oo ku fiicnay xagga deegaanka laakiin istaraatiiji ganacsi leh. Waxaa ku yaala Laas Qoray halkan marka gobolka Sanaag aan wali ku jirnaa oo caasimadiisu tahay Cerigabo. Gobolka Sanaag waxaa ku yaala meel la yiraahdo Laas Qoray degmo la yiraahdo Laas Qoray waxaa ku yaala warshadii kalluun ee ugu horeysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay yeelato hadda waa burbursan tahay waxay soo saari jirtay toone qasaacadaysan ayay soo saari jirtay. Marka waa meel aad iyo aad u qurux badan oo ku habboon kalluumaysiga marka kalluumaysatadu ay soo qabato kalluunka. Kan waa dekeda Boosaaso shalayto aad mashquul ahayd waxaa ka tegay tankarka. Tankar waxaa laga wadaa waa kan qaada saliidda iyo waxyaalaha chemicalska oo deegaanka u fiicnayn waa gudud wada badda ku aragto satellite-ka hadda kaga aragto. Hadda waxaan isticmaalayaa satellite-ka koreed ayaan ka fiirinaa. Caluula halkan uga jeedaa yaaktaas markabka yaakta la dhaho waa dooni dalxiis baa badanaa loo isticmaalaa special thingsna loo isticmaalaa waxyaalaha khaas ah sababtoo ah waxa laga yaabaa in madaxa saaran yihiin inay saaran yihiin wax aan la rabin inaysan ogaadaan dadka kale badanaa yaak baa la dhahaa dhowr xabaa ku jira badeena maanta. Halkan waa gacanka ma maqashay Raas Casayr ilaa Raas Kamboni. Raas Casayr waa meesha ugu shishaysa dhul ahaan qaaradda Afrika. Waa marka laga tago jasiiradaha Socotra iyo halkaas. Haddana Horn of Africa dad maqashaan waa halka waa geeska Afrika meeshaas oo dhulkii Bunti ku yaala ama Puntland. Beergaal baa u jeedaa wadkaas waa cargo markabka aan rabo aad waa Bayutola markabkan ilaa iyo isbuucii soo dhaafay xeebuhu ku jiray wuxuu ku diiwaan gashan yahay calanka Soomaaliya. Maraakiibta badanaa waxaa lagu diiwaan geliyaa calan wada calanka doonto qaadan karaa. Salalah buu badanaa aadaa. Salalah waana markab kalluumaysi. Salalah waa Cumaan. Marka markabkan ishaan ku hayay meelo mamnuuc ay tahay maraakiibta yani doomaha waaweyni inay tagaan ayuu ku jiray. Xaafun buu hoosta ka galay waana mamnuuc doomaha noocani inay meelaha galaan ilaa isbuuc buu ku jiray. Xaafun baan ku arkay haddana wuxuu marayaa halkaas uu marayaa.
oo yacni destinationkiisa iyo meesha ku socdana cid og ma lahan sidaa daraaddeed waa shaki weyn buu abuurayaa calankeenana wuu ku duulayaa doonidaasi waa 34 mitir doomahaas aagga saas uma soo geli karaan sababtoo ah waxaa loogu talagalay aaggaas kalluumaysata yar ilaa 10 mitir doomaha ah markaan kasoo tagno oo aan imaadno xaggan galmudug ee gobolka mudug maanta waxaa maraya maamul yirahdaa alexandria ku yimi egypt mombasana ku socdaa waa markab cargo ah ma aqaan wuxuu wado laakiin cargooda wuxuu noqon karaa shumitadoo kale sokortoo kale waxaas inuu wada laga yaabaa maraakiibtaas oo dhan baa maanta xeebteena taagan haddaan u nimaadno xeebteen muqdisho oo dekeda muqdisho oo deked aad u weyn oo dib loo casriyeeyey waxaa taagan markab chemical wada baa ka baxay shalayto markabkaas wuxuu waday chemical oil iyo chemicals ku qaadaa muqdisho ku socday muqdishona geeyey wuuna baxay ma garan karno markaa chemical noocay uu waday maxaa laga yaabaa inuu saliid waday ama wax kale oo chemicals oo aanan garan karin anagu halkaas markaa ku jirta birta yar ee taagan meesha haddaad aragtaan korka aragtid macnaheedu waxay tahay meeshaas inay tahay meel dekeda oo lagu xiran karo inay dhinaca kaa xigto waaye meel kasta deked lagama dhigo ilaa 9 dekedood ilaa 10 dekedood ayaa dalkeenu leeyahay oo yaryar qaarna waaweyn laakiin wax international ah muqdisho iyo kismaayo iyo boosaaso iyo berbera okay markabkana taagan markabkan wuu hubeysan yahay waa nooca qaada containerada ilaa maadaama uu container badan oo dhaqaale badan uu wado Liberia flag buu ku duulayaa waxa laga yaabaa Liberia inaysan lahayn laakiin calanka uu leeyahay Liberia saas la dhahaa marka uu hubeysan yahay maadaama ay ka baqayaan wuxuu ku socdaa Mombasa xeebaheenu maraya waxaa muhiim ah dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah inay halkan fahmaan halkan waa Goobweyn waa meel aad iyo aad muhiim inoo ah yacni waa meel dalxiisayaasha muhiim ah webiga Juba ayaa badda ku dara marka halkan haddaad biyahan dhinaca xiga haddaad tabatid buluuga ah yani waxay noqonayaan macaan dhanka kale waxay noqonayaan macaan halkan dhinaca waa barax halkaas waxaa ku badan gusduleedka iyo mangrove-ka iyo mangrove hadduu meesha ku badan yahay kalluumo aad u muhiim ah laga helaa sida shirimbiga iyo noocyada badan oo kalluunka sidaa daraaddeed meeshani waa Koyami iyo Chirole waa jasiirado aad iyo maxaa muhiim u ah xagga dalxiiska jasiiradaha Soomaaliya meel ku dhawaad 20 jasiiradood baynu leenahay laakiin ma naqaano haddaad meeshaas waa tog ama webi ma aha waa togog run off baa la dhahaa biyaha macaan baa badanaa ka soo gala marka roobo xooga degaan sidaa daraaddeed waxay aag dhaqaaluhu noqonayaa dhaqaale aad u badan kalluumaysatada Kenyaatiga aad u isticmaala xeebaheenan oo tuugnimo kusoo gala halkani waa meeshii haddaad maqashay Kaboni waa meesha ugu sareysa dalkeena in marka laga reebo dhulka xooga lagu haysta Kenya xoog ku haysta halkan waa xuduud beenaadkii meeshan waa meeshii Kenya lagu qabsatay laynka dheer bay rabeen inay toos u soo saaraan si ay u helaan meeshaas ceelal shidaal laga helay marka laakiin teeni baa inaan oo raacay walow wax yar laga leexiyo afka si aysan land local u noqon Kenya oo xagga EEZ-ka economic zonka ama aaga dhaqaalaha ba an yar inaga xaggeena lagu soo leexday taasna maxkamadda go'aamisay marka waa meel aad muhiim inoo ah ceelal shidaal iyo xagga kalluumaysiga istiraatiijiyad ahaan almino hada dhulkeenu oo dhulka noocaas u yaala waxaad leedahay dhulkaas u ballaaran meeshaas mashquulka adduunka oo dhan 30% ganacsiga adduunka mara halkaas ay degan tahay waxaa qurux badan inaad dhulkaaga taqaano mahadsanidin sharaf iyo karaama idinku ogahay